بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. maanta bisha barakaysan ee ramadaan waa 8 iyo 10. shalay waxaan wax ka soo tilmaanay dagaalkii ama duulaankii ama qaswadii beder, taasoo ahayd mid muslimiinta lagu ciseeyey, kufaartana lagu jebiyey. 17 beder waa maalintii uu dhacay dagaalkii taariikhiga ahaa ee ugu horeeyey ay muslimiintu ku qaabileen ama ay kaga hortageen cadowgii kufaarta ahaa. qaswadii beder taariikh badan ayaanu ka soo marnay ama aan ka soo aragnay. maanta waa 8 iyo 10 bisha barakaysan ee ramadaan. annagoo qaswaadkii sii wadnaa, waxaan wax ka tilmaami doonaa dagaalkii uxud iyo sida xaaladiisu ay ahayd, waayo qaswaadka uu nebigu galay sala allahu calayhi wasalam taariikhi ayay ahaayeen. muslimiinta in la baro waa shay muhiim ah, iskuulaadka in lagu dhigaa waa shay muhiim ah, dugsiyada in lagu qaataa waa shay muhiim ah. waa taariikh dahabi ah oo qofka ku abuuri karta iimaaniyaad aad iyo aad u sarreeya. beder markii uu dhacay, muslimiintii ay guulaysteen, kufaartiiba xanaaq la jexjeexmaysa, qalbigoodii ayaa go-go-aaya, carro iyo ciil baa isugu darsantay. waxay go-aan ku gaareen gudasho inay sameeyaan oo ay dib ugu noqdaan madiina, muslimiinta iyo nebigana ay ka aargutaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala inta rumaysa oo iimaan ka qaadata ayuu micigoodu yahay mar walba. sanduuq dhaqaale lagu ururiyo ayay fureen quraysh. in dhaqaale lagu ururiyo oo mar labaad dib loo weeraro muslimiinta waa go-aan ay gaareen. weliba dadkii dadkooda lagu laayay ayaa aada ugu ololeynayay arrinta, oo ay ka mid ahayd abaa sufyaan naagtii uu qabay waa hinda bintu cutbe. aabbaheed cutbe iyo dad fara badan ayaa meesha looga laayay. aad bay u xanaaq qabtaa, madaxa ayay tifaysaa, garbasaarta ayay wejiga ku duubataa. dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka soo gaaray dagaalka. nimankii ahaa quraysh waxay guda galeen inay ciidan diyaariyaan, kuwaasoo hujuum ku qaada dhinaca muslimiinta ah. xaaladdu markay meeshaa maraysay oo ay isqabanqaabiyeen oo ay damacsan yihiin bal inay soo weeraraan, waxaa dagaalka hogaamintiisa lahaa abuu sufyaan, ninka markaa lagu magacaabo. muslimiinta dhankooda waxaa soo gaaray inay isqabanqaabinayaan qurayshtii oo ay rabaan mar labaad inay duulaha ku soo qaadaan, taasoo aargudasho u noqota maalintii beder iyo wixii markaa asiibay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu la tashaday saxaabadiisa,
wuxuu yidhi maxaanu samaynaa? warhoy maxaan samaynaa? nebiga waxaan horay u soo tilmaannay wixii aan waxyi lagu soo dejin oon ilaahay u soo sheegin saxaabadiisuu kala tashan jiray. way iskhilaafeen waxoogaa. qaar waxay go-aan ku gaareen in ragga bannaanka loo baxo magaaladana aan lagu sugin. weli waxaa arrintaa u ololeynayay dhallinyaradii xamaasnaysneed oo dagaalkii bederna aan ka qayb gelin, ciilna ka haaya. wanaaggaa dhaafay, maba sugayni bay dheen, bannaankaan ugu baxaynaa, bannaanka ayaan u aadaynaa. saxaabadii qolo ka mid ah waxay ayagu go-aan ku gaareen in loo baxo ragga, layska celiyo, bannaanka loogu tago. nebigana ra'yiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu qabay oo u janjeersanaa inaanan la bixin, magaaladana lagu sugo, hadday soo galaanna saa markaa lagula dagaalamo. ra'yigaa waxaa kaloo qabay ninkii munaafiqa madaxa u ahaa cabdullaahi ibnu salal, ninka lagu magacaabo, ra'yiga nebiga qabay yuu asaguna markaa qabay. nebigu waa istaagay sala allahu calayhi wasalam, wuxuu aaday dhankii gurigiisa. waa khudbadii kadib, markuu gurigiisii galay yuu dharkiisii dagaalkaa soo labistay sala allahu calayhi wasalam. seeftiisiina wuu soo qaatay isagoo labisan, diyaarna u ah dagaal, ayuu saxaabadii ku soo dhex baxay. aad bay ugu murugoodeen qasabkii ay qasbeen iyo ra'yigii uu isaga qabay inay ka leexdeen. nebigana ay damceen, ay israahdeen amaad ikraahdeen. markaasay dheen rasuulkii allow, haddaan ku ikraahinay raalli ka noqo, ra'yigaagaan qaadanaynaa. ma habboona buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. nebi owla uma aha, mana u habboona mar hadduu dharka dagaalka labisto inuu dib u dhigo mar labaad. subxaanaka ya raxmaan. shujaac geesi ah yuu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nebiga wuu soo baxay marka, waxa uu soo aaday baa la yidhi dhanka uxud, asagoo ciidan aan saas u sii tira badnayn uu markaa wato. cadadoodu ay aad iyo aad u yar tahay ayay markaa soo baxeen. waa maalin sabti ah, 15 ay ka tagtay bisha shawaal, sanadkii 3 ee hijrada. saasay markaa u soo dhaqaaqeen. 3,000 bay ahaayeen. 3,000 oo ciidana ayay markaa ahaayeen muslimiinta. munaafiqiintii baa ku dhex jirtay, ilan mar walba ayagu way ku dhex sugan yihiin muslimiinta gudahooda. nebiga sala allahu calayhi wasalam xaaladdaa markii ay dhacday ee u dhankaa ee uxud uu soo aaday, intaasoo yar oo muslimiina asaga oo wata, waata ilaahay tilmaamay, waata ilaahay uu ka hadlay subxaanahu wa tacaala. waid qadowta min ahlika, waqti xus rasuulkii allow aad ka jarmaaday oo aad ka dheelmatay ehelkaagii gurigaaga, tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal, adigoo mu'miniintii dejinayay maqaacidkii iyo makaanu fadhigii dagaalka. wallaahu samiicun caliim, ilaahay alla maqal badan oo cilmi badan buu ahaaday. cabdulaahi ibnu salal ninka lagu magacaabo munaafiqi madaxoodii yaa dhexda markii la maraayay, ciidankii 3 marka loo dhigo qayb ka mid ah waa 300 yuu la soo laabtay. allaahu akbar. alla munaafiqu dhib badnaa, xilli ixraaj ah oo dhib badan ayuu ku dhex abuuray muslimiinta. ciidankii 3 meelood meel buu la soo noqday. maxaan u dhimanaynaa buu yidhi, maxaan u dhimanaynaa? munaafiq, qof dhib badan, kana daran gaalada. markuu sa ula soo noqday, ciidankii uu bar la soo noqday, yaa muslimiintii gobol ka mida waxay damceen, qalbigana ka galay, bacdamaa ciidankii kala jabay, inay fulayoobaan.
rabbi baa ka hadlay oo yidhi id hamma taa'ifataani minkum an tafshalaa waqti xusa laba daa'ifo oo idinka mid ah ay damceen inay fulayoobaan wallaahu waliyuhumaa ilaahayse weligooda noqdoo sugay wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuuna mu'miniintana rabbi ha u tala saartaanee talada ilaahay ha u dhiibtaano. labadaa waa reer banu xaarisa iyo reer banu salima. ayagoo inay falayoobaan oo ay baqaan ayay damceen, laakiin rabbi ayaa sugay subxaanahu wa tacaala. mar allaala markay saa u soo sugnaadeen iyo ciidankii ilaahay ku ammaanay inay ilaahay talada u dhiibtaan uu amray, yay ilaahay taladii u dhiibteen subxaanahu wa tacaala. dagaalka uxud waa dagaal taariikhi ah. qaswada waa qaslo aad iyo aad u cajaa'ib badan. waa duulaan rabbi subxaanahu wa tacaala cibar iyo cido iyo waana oo dhex yeelay subxaanahu wa tacaala. cabdullaahi ibnu ubay, cabdullaahi ibnu bin salol ninka lagu magacaabo oo munaafiqiinta madaxooda ah ayaa xaaladda sameeyey, muslimiintiina damcay inuu markaa ku kala jebiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala nasriga iyo guusha rusushiisa iyo mu'miniinta ayuu markaa u ballan qaaday mar walba. rasuulku takhdiid buu sameeyey, wuxuu yidhi 50 nin oo muslimiintii ka mid ahaa oo madax uu uga dhigay ninka lagu magacaabo cabdullaahi ibnu jubayr. buurtaa kora buu yidhi, waa jabal rumaad baa lagu magacaabaa, wuxuud agteeda ah. buurtaa fuula oo dhakadeeda taga buu yidhi, meesha nooga ximaayeeya oo nooga waardiyeeya cadowga, dhanka ayaana loogaga imaanin. wuu la dardaarmay rasuulka, haddaad aragtaan inaan guulaysanay oo libin iyo nasri aan helnay, ha soo degina ilaa aan aniga amar idin siiyo. haddaad aragtaan in hilbihiina la jarjaray, nala googooyey, nala ka adkaaday, hilbaheennuna ay haadda cunayso, ha soo degina ilaa aan aniga amar idin soo diro, yuu rasuulku kula dardaarmay raggii meesha fuulay. 50 nin buurtaa bay koreen. isla markii dagaalkii baa bilowday, isla markiibaa guushii dhankii muslimiinta soo martay. wax badan maba aysan qaadaninba, wax la dilay, wax cararay iyo wax la taxaabtay baa laga dhigay nimankii gaalada ahaa. maalintaa cajaa'ibta ay lahayd waxaa ka mid ahaa dhanka gaalada waxaa la socday inan wax ay soo reebteen ma lahayn. dhibbahooda iyo utbahooda ayay soo kaxaysteen. waxaa ku jiray baa la yidhi oo dagaalka maalintaa ka soo qayb qaatay oo soo raacay. waxaa maalintaa dagaalka soo galay oo ka qayb qaatay dumar fara badan, dumar aad u fara badan. 17 dumar ah ayaa ka soo qayb galay oo ay haliyey u tahay u horeyso hinda binti cudba oo abi sufyaan zawjadiisii markaa ahayd. waayo aabbaheed baa lagu dilay maalinta beder. maalintii beder waxay qabtaa ciil aad iyo aad u daran, waxay qabtaa ciil aad iyo aad u xooggan. weliba intaan lasoo bixin waxshi oo aad ugu dheereeyey fallaarta iyo shishmada yay ballan u qaaday ninkii ahaa xamza ee dilay aabbaheed inuu uga aargudo. waxayna ballan u qaaday inuu xor noqon doono, lana xorayn doono ninka waxshi ah haddii uu dilo xamza oo nebiga adeerkii ah oo aabbaheed beder markaa ku dilay. gabdhaha markay meesha soo aadeen oo ay yimaadeen dagaalkii uxud, xamaasay ku abuurayeen, way dhiiragelinayeen ragga. in tuqbiluu haddaad qaabishaan oo dagaalka horay aad u gashaan, barkimaan idin fidinaynaa, waa idin mucaanaqaynaynaa,
waa idin qorqoraynaynaa haddaase soo dibjeedisaan ood soo carartaan maanta nufaariq waa idin faaruqaynaa garabkiina ma nihin ragow faaruqitaan aad dib dambe laysugu soo noqonayn mashxarad carab dhow alalaas ay ku dhex samaynayeen dagaalkii gudihiisa. nebiga markuu saxaabada la dardaarmay buurtaana uu koray uu saaray dardaaran xoogganna uu siiyey waa tii dagaalku bilowday, waa tii dagaalku dhacay, waa tii nasriga iyo guusha dhinaca muslimiinta ay soo martay. dadka gobol ka mida waxaan u jeednay bay dhahayeen Hinda bintu Cutba oo cararaysa cambuurkeedana intay saa u xanjeeratay orod buurta dahabkii ka dhacdhacayay iyo maba ujeedaba buurta wuxuu aadoo saa u sii koraysaa orodkii orod ahaa wax la arko waxa ugu foolxun bay dhahaan dadka naag ordaysa. macnaha raggu markay cararayaan iyo dumarka markay ordayaan isku qaab ma aha, wax aad dayi kartid maba ahanba. hindadiisaa ahayd oo intay marna kor aado marna buurta hoos ay uga sii daadegto yaan markaa u jeednay. say noqotaba dagaalkii bilaawayey dhib fara badan baa soo gaaray dhankii mushrikiinta, qaar baa la laayay, dhib fara badan baa la gaarsiiyey. ilaah subxaanahu watacaala baa guushii siiyey dadka mu'miniinta ah. sharaf iyo khayr fara badan yay ku dhex sugan yihiin. ballanqaadkii ilaahay u ballanqaaday lagama guub yeelin, sidii ay ahayd ayaa markaa loogu fuliyey muslimiinta. calaa itixaal muslimiintii waxay guda galeen inay aruursadaan khaniimadii meesha ku daadatay, dahabkii, xoolihii, asiiriintii inay qabqabsanayaan, inay aruursanayaan iyo markaa guda galeen. 50 nin ee la saaray buurtii korkeeda saas intay u soo jalleeceen yay arkeen muslimiintii oo maxadayi kartaa xoolo ku dhex sugan, wax aruurinaya, gaaladii oo jabtay, cararaysa, kor aadaysa buurta korkeeda, orod iyo firxasho ku jira. sa markay arkeen bay dheheen alghaniima alghaniima, hoy waa la guulaystay waa la guulaystay. war naga keena maxaan ka samaynaynaa meesha muslimiintii guulaysteen oo gargaar baa alla siiyey, khaniimada aan ka qayb qaadano. minkum man yuriidu addunya wa minkum man yuriidu alaakhira yaa ilaahay kusoo dejiyey subxaanahu watacaala. cabdullaahi bnu jubayr oo madax looga dhigay raggii wuu celiyey. war dardaarankii nebiga ma ilowdeen, war haddaan guulaysanana hanoo imaanina, haddiina laka guulaystana hanoo imaanina ilaa ani amarkayga idiin yimaado. aaway dardaarankii nebiga sala allahu calayhi wasalam, minkum man yuriidu addunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira. waxaa idinka mid ah kuwa adduunyo doon ahoo khaniimada u degay, kuwa aakhira doon ahoo meeshoodii saarnaaday oo qoorta looga wada gooyey ayaa idinka mid ahoo labaa loo qaybsamay. waa degaynaa, rasuulka ujeeddadiisu maysan ahayn inaan iska saarnaanee in la guulaysto unbay ahayd. qaar baa soo degay, khaniimadii bay damceen inay wax ka aruursadaan. khaalid ibni waliid oo xilliga aan weli soo islaamin yaa arkay rumaadii meesha ka tagtay, meesha aan saarnayn wax muslimiinta ama ciidankaa kale muslimiinta ah dhabarka ka ilaaliya inaysan markaa meesha joogin. nin aad iyo aad ugu xeel dheer taktikada dagaalkana khaalid waa ahaa radia allahu tacaala canhu. saas intuu usoo rogaal celiyey, dhabarjebin uu ku soo sameeyey, buurtii geesiyaashii muslimiinta la saaray 10kii meesha ku hartay intuu saa ugu tegay meesha yuu dhammaantood jiifiyey, qoortuu ka wada gooyey, waa uu wada dilay radia allahu tacaala canhu. gadaal buu kasoo islaami doonaaye. markii dhabarjabkii lagu sameeyey, ciidankii dhabarjebin lagu sameeyey, intii dusha ka ilaalin lahayd la laayay, yuu ku soo duldegay khaalid muslimiintii oo khaniimadiisa u aruurinaya. laa ilaaha ila allah. dahabkii qaadanaya, dhaymankii qaadanaya,
dumarkii lugahooda wixii ku jiray cabsi darteed ka furfurmay, meesha ku dhammaaday, meesha uga tegay, yuu dul yimid. waa uu dul yimid. muslimiintii buu ka dhigay wax carara iyo wax meesha lagu dilo. radia allaahu tacaala canhum, ilaahay ha ka raadi noqdo dhammaantoodee. carabay magaalada madiina ku tageen, gobol ka mid ah. wax ku soo haray nebigaaba yaraaba ama uusan jirinba. in yar oo nebiga ku koobnaatay maahane sala allahu calayhi wasalam. xaaladdaa markay meesha marayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadiisana uu nooga sii sheekaynaayo, uu noo tilmaamayo jabkii iyo waxyaabaha meesha ka dhacay iyo sida xaaladdu ay markaa ahayd, ayaa aad iyo aad u cajaa'ib badan markuu rabbi nooga warramayey suuratu aala cimraan, ilaa heer la gaaray in la faafiyey ay suuqu gashay nebi maxamed ba in la dilay sala allahu calayhi wasalam. haddii nebi maxamed baa la dilay ay suuqii soo gashay, waa la kala tuuray ee imtiqaanaa seefihii iyo wixii la watay. nebi maxamed hadduu dhintay, maxaan ka samaynaynaa meesha? maxaan ka qabanaynaa? waa la kala cararay. magaaladii madiina firxad iyo orod markaa lagu galay. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu tilmaamay, wamaa muxammadun ilaa rasuul. maxamed ma aha ilaa rasuul maahana wax kale. qad khalad min qablihi rusul, hortiisa ay rusul tagtay. afa in maata aw qutil, hadduu dhinto nebi maxamed amaba la dilo, inqalabtum calaa acqaabikum, cirbihiina maad u gadoomaysaan buu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala. ma jihaadkaad joojinaysiin? ma diintaad ka tegaysaan? waman yanqalib calaa caqibayhi, cirbihiisa qofkii u gadooma, falan yadura allaha shay-an wasayajzi allaahu shaakiriin. nebi maxamed haddii la dilo ama uu dhinto, waayo diintaa laga tegaa miyaa? jihaadkaa la joojinayaa miyaa? madiina loo firxanayaa miyaa? xaaladdaa yaysan markaa dhicin. arrintu saa yaysan ahaanin, waayo naf ma dhimato ilaa ilaahay idinkiisa maahane. kitaaban mu'ajalan, kitaab la madaleeyey iyo nafi ku dhimataa. waman yurid thawaaba adunyaa nu'tihi minha, waman yurid thawaaba alaakhirati nu'tihi minha wasanajzi allaahu shaakiriina. xaaladaasi aayadaha ayuu ilaahay ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala. haddaba dagaalka uxud, xaalku markuu meeshaa gaaray, ay muslimiintii kala farxadeen oo markaa la kala orday, ilaahayna aayado kale uu ku tilmaamay, id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin wاrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faahaabakum gaman bigamin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wallaahu khabiirun bima tacmaluun. waqti xusbuu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala, aad sii fuulayseen buurtii madiina oo kor aad u sii aadayseen idinkoo rabaa inaad madiine aadaan. id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad, qof gadaal soo dhuganayay idinkama mid ahayn. rasuulkana yadcuukum fii ukhraakum, gadaal buu idinkaga wacay, yaa cibaadallah ilaya, waraan ii imaada, war addoommadii ilaahayow ii kaalaya. gadaal buu uga qaylinayaa, walaa talwuuna calaa axadin wاrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faahaabakum gaman bigamin buu ilaah idinku abaalmariyey, saadan uga murgoonin wixii idinka tegay oo idin dhaafay iyo wixii idin asiibayba. ilaahay khabiirun bimaa tacmaluuna, waxa aad samaynaysaan khabiir buu ku ahaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay asagoo usii tilmaamaya ayuu yidhi, walaqad sadaqakum allah, ilaahay waa idiin dhabeeyey waana idiin rumeeyey, wuxuu idiin ballan qaaday wacdahu id taxusuunahum, waqti aad jirid goynayseen gaaladii. hal hal baa loo baabi'inayey, hal hal baa qoorta looga goynayey ilaahay idinkiisa. xataa idaa fashiltum, ilaa aad fashilanteen, watanaasactum fi lamri, amarkii aad ku doodeen, wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun, aad caasiseen ilaahay nebiga amarkiisa markuu alla idin tusiyey kadib. waxaad markaa jeceshiin oo khaniimo ah, minkum man yuriidu dunyaa
wa minkum man yuriidu alaakhira. qolaa idinka mid ahayd adduunya doon ahayd, qolaa idinka mid ahayd aakhira doon markaa ahayd. walaqad cafaa cankum, allana waa idinka saamaxay. wallahu duu fadlin cala almu'miniin. aayadahaasoo dhan waxay tilmaamayaan dhacdadii beder iyo sida xaaladeedu ay ahayd. muslimiintii macdamaa xaaladaa ku dhacay, jabkaa uu ku dhacay, mashaakilkaa uu asiibay, nabigana sala allahu calayhi wasalam oo gadaashood ka qaylinaya uu leey war waa noolahaya ii imaada, war xaggayga imaada. yay dib isku soo qabanqaabiyeen, yay dib nebiga ugu soo laabteen. nebiga sala allahu calayhi wasalam amarkiisa oo la diiday, halkaa arrin ee la fulin waayey, yaa jabkaasoo dhan markaa u yimid. meeqaan khilaafnaa sunno nebi, meeqaan ka hor nimaadaa sunno nebi, meeqaan ka hor nimaadnaa oon diidnaa amar rasuul. ilaahay xilmigiisaan ku joognaa, dulqaadka ilaahay ayaan ku joognaa. ninkii ahaa Waxshi, asaga dagaalka uma soo gelin ilaa hadafkaa ah inuu Xamse dilo maahane. gabadhii waxay leedahay xamsow i caafi maanta qalbigayga hurka ku jira qabooji, addoonnimada aan kaaga raaxeeye aad ku jirto. xamse waa dagaalamay maalintaa radia allahu tacaala canhu. raggii sida ba-an u dagaalamay Muscab ibnu Cumayr baa ka mid ahaa. nebigana aad u difaacay. dilkii Muscab ku dhacay, Muscab marka la fiiriyana rasuulku wuu ekaa. taasaa shaydaanku suuqu ku geliyey maxamed inuu dhintay. Waxshi marba geed buu ugu dhuntaa, marba geed ayuu u gadaal galaa. Xamse ninka la yidhaahdo, goronyada baalkeeda ayaa madaxa saa ugu jira radia allahu tacaala canhu. ligbalug, raadbaraad, buurbabuur yuu ugu dhuntaa. waa dagaalamayaa xamse, awr baad moodaa geesi ah. mar allaala markaan la hubsaday buu yidhi, oon ku hubsaday, yaan eebadeydii ruxruxay. laa ilaaha ila allah. wuu ku tuuray, meeshaabay ka gashay, xundhurta hoosteeda ah. ayadoo meesha ugu jirta sii dagaalamayaa radia allahu tacaala canhu. xamza waa geesigii ilaahay, waa libaaxii alle. ilaa markii dambe dhaabicii uu tabar dhigay, xamsow dhulka ku dhacay, saana uu markaa ku shahiiday. inta way kaga hari weysay hinda, intay u timid bay beerkiisii macnaha calooshiisii saa u jeexday, iyo kibidkii xamse iyo beerkiisi intay la soo baxday ciil daraaddiis yartaa inay cunto. afkay gelisay, wuu ku qaraaraaday, wuu iska tuftay, way tuftay. Waxshi waa isaga soo baxay dagaalka, meeshaasuu iska fadhiistay. waayo ujeeddo kaleo hadda soo gelisay dagaalka maysan jirin, ma jirin. bacdamaa xaaladdu meeshii ay marayso, xamsena oo ka mid noqday dadkii ku shahiiday meesha, nebiga markuu arkay say u gashay, 70 baan uga aari doonaa buu yidhi. wasbir wamaa sabruka ilaa billaah walaa taxzan calayhim baa rasuulka lagu soo dejiyey. wain caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin. inuu iska sabra nebiga sala allahu calayhi wasalam. xaalku markuu meeshaa maraayey, dagaalkii istaagay, mar labaad ay guushii heleen muslimiinta, laakiin dhaabacan iyo qarxigan markaa soo gaaray, sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay uu ku tilmaamay xaaladan sida ay ahayd iyo wixii markaa dhacay. walaa tahinuu baa la yidhi, walaa taxzanuu, ha tabardarnaanina jabkan idinku dhacay.
ha murugoonina oo ha daciifina wa antum alaclown idinkaa ka sareeye in kuntum mu'miniin haddaad tihiin in yamsaskun qarxun faqad massa alqowmu qarxun mithluh haddii qarax iyo dhib idin taabtay qoomkiiba wuu taabtay kaasoo kale wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxaani waa ayaamo dadka beenkooda lagu dhex wareejiyaa waliyaclama allahu aladiina aamanuu wayattakhida minkum shuhadaa wallaahu laa yuxibu aldaalimiin saasuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala dagaalkiibaa istaagay raggii baa lasoo kala fiiriyey mushrikiintii dhib badan baa soo gaaray laftigooda maalinta oo gacantii hore muslimiinta markaa lahayd gacantii dambe waa looga guulaystayoo kafkii gaalada dhinacooda iyo guushii markaa aaday korna markaa u soo qaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu guda galay ama uu bilaabay in la aaso dadkii ku shahiiday dagaalka uxud dhaawacii aad buu u badnaa oo dadkii god badan maysan qodi karin meydka laftigiisa wuu tiro badnaa rasuulku wuxuu amray labadii qofba in hal god lagu aaso qofkii xaafid ahaa oo qur'aanka ugu qur'aan badanna in laxdiga lagu horumariyo xaafidulqur'aan sharafta uu leeyahay iska dhaaf adduunkee qabriga uu imaam ugu noqonayaa uuna ugu horumarayaa dadka markaa laysla aasaayo markaasaa labalaba layskula aasay labalabaa laysugula duugay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa u duceeyey anigaa markhaati u ah buu yidhi kuwan maalinta qiyaamaha allahu akbar aniga ayaa markhaati u ah rasuulkaa u marag furaaya inay shahiideen dagaal ay galeen diintiisay difaacayeen ay markaa ku dhinteen xaaladaasuu markaa tilmaamay axaadiistu ay markaa tilmaantay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu faaruqay duugitaankoodii walow wuxuu amray ayagoo dharkoodii qaba iyo dhiigooda in lagu aaso aan la duugin aan la dhaqin xaaladaas ayaa lagu aasay mid kastoo ka mid ahna rasuulkaa markhaati u noqon maalinta qiyaamaha dagaalkii markuu dhammaaday gaaladii ay gees u socmeen muslimiintii ay gees u socmeen ninka abuu sufyaan la yiraahdo ayaa hadlay markaasuu ku yidhi afiikum muxamed war maxamed ma idinku jiraa oo ma nool yahay ka aamusa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ha u jawaabina afiikum ibn abi quxaafa abubakar buu ula jeedaa abubakar ma nool yahay oo ma idinku jiraa ka aamusa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam mar saddexaad buu yidhi afiikum cumar ibnulkhadaab fiiki ma yahay oo dhexdiina ma ku sugan yahay ka aamusa buu yidhi wallaahi way dhinteen buu yidhi hadday noolaan lahaayeenna way la hadlay lahaayeen cumar baa iscelin waaye kadabta yaa caduw allah cadowga ilaahayoo beenlow baa tahay buu yidhi saddexda waa kuwan waana nool yihiin saddexdaba way nool yihiin adigaa iga run badan kii iisoo sheegay maxamed in la dilay buu yidhi cumarow hadalkaagaan rumaysanayaa inay nool yihiin way haddaay mid baa suuqa geliyey in nebigana la dilay kaas hadalkiisa iyo kaagaan rumaysanayaa ucliya hubul buu yidhi abuu sufyaan hubuloo kor noqo waa sanamkay caabudaan sanamka ay caabudaan ee hubul la yidhaahdo kor noqo buu yidhi lanaa cuzaa walaa cuza lakum cuzaan leenahay waa sanamkay caabudi jireen idinkana cuzi ma lihidiin maad jawaabtaan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo maxaan dhahnaa lanaa mawlaanaa walaa mawlaa lakum mawlaan leenahay dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum ilaahay mawle ayuu u yahay dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu dadka iimaanka leh ayuu mawle u yahay wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum gaalada wax mawlaa ay leeyihiin markaa ma jiro saas dhaha buu yidhi nebiga sidii bay markaa yiraahdeen maanta maalintii beder u qaata buu yidhi abuu sufyaan
maalintii beder u qaata, beder baad naga adkaateen, annaguna maantaan idinka adkaanay. maanta iyo maalinta isku bixiya. alxarbu baynana sijaal, dagaalka naga dhexey waa kolaytan, marna raaya marna aan idinka rayno. beder iyo uxud buu markaa ula jeedaa. beder iyo uxud ayuu ula jeedaa. waan arkay meydadkiina gobol ka mida in la googooyey, qaar indhaha laga bixbixiyey, qaar dhagaha laga guray. kama xumi buu yidhi, laakiin aniga ma amrin. nin cajiib leh Abu Sufyaan. anigu ma farin oo googooyo meydka muslimiinta ma dhihin. haddii saas ay yeeleenna kama xumi buu yidhi, macnuu ku faraxsanahay. aan isugu nimaada sanadka dambe beder, aan isugu nimaada meesha. haddana ha lagu kala taga meesha. muslimiintu way iska soo laabteen. haziime imtixaan ah ayadoo ay ku dhacday. gaaladii way laabteen ayagana, ayagoo ku faraxsan nasriga ay gaareen ama ay heleen. yaa nin walba meeshii uu ka yimid ayuu markaa ku noqday. qaswatu uxud waa taariikh aad iyo aad u cajaa'ib badan. waa dersi muslimiinta cibro ay ku qaataan, dersi ay ku qaataan, wax badanna ay ka faa'iideen ayay markaa noqotay. dersi nebi moxamed sal allahu calayh wasalam amarkiisa in la fuliyo lagu liibaano, haddii la khilaafana lagu jabo oo liibaan aan la helaynin inay tahay ayaa markaa laga bartay, lagana qaatay. qaswaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam dhammaantood mid kasta midda ku xigta way ka cajaa'ib badan tahay. qaswatu uxud meesha inoo joogto. ilaa xaqaan ka baryaynaa inuu muslimiinta nasri iyo guul siiyo, maadaama bisha barakeysan ee ramadaan weli aan ku dhex jirno. ilaah waxaan ka baryaynaa muslimiinta inuu u gargaaro nasri casiis ah oo mu'asar ah, ka nasri beder oo kale inuu ilaahay muslimiinta siiyo meel kastoo ay joogaan. annaga waxaan ilaah ka baryaynaa soonka iyo salaadii qiyaamka aan samaynayno, ilaahay inuu naga aqbalo, fadligiisuu nooga aqbalo subxaanahu watacaala. bishii barakeysneed ee ramadaan, inkastoo dhanka gebagabada ay u badatay haddana weli waan ku dhex sugannahay. fursadaadkii, dembi dhaafkii, naar xorayntii, kulli waa ku dhex jirnaa. ilaahayna hana waafajiyo subxaanahu watacaala. wabilaahi towfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.